waalidkii asiga iyo walaalkii ka weynaa unbay dhaleen. Aabihii iyo walaalkii ka weynaa kansar bay u dhinteen. Xilligaa wuxuu ku jiray uurka hooyadii Subxa. Xaaladdu ku adkaatay ayay hooyadii dhowr mar isku dayday inay isdisho oo galaafato nafteeda iyo nafta cunugeeda. Nasiib wanaag ma dhicin oo waa uu dhashay. Waxaa qaatay adeerkii oo la noolaa. Hooyadii waxay guursatay nin kale, waxayna u dhashay 3 wiil. Xilligaas ayuu xaafadda ku soo laabtay asigoo 10 jir ah. Adeerkii hooyadii qabay si wacan ulama dhaqmi jirin oo waa uu garaaci jiray, taasoo sababtay inuu xaafadda iskaga cararo. Adeerkii ayuu la noolaa muddo badan oo soo koriyey. Waxa uu dhameeyay dugsiga sare, waxa uuna ku biiray kulliyadda Shiiciga ee Baghdad, balse nasiib xumo wuu iskaga haray si uu qayb uga noqdo xisbiga Baakad ee kacdoonsadaha ahaa. Dugsi ayuu ka noqday macallin. Halkaas ayuu ka bilaabay halgankiisa. Xisbigiisa dadka ugu sareeyay ayuu ka mid noqday, asigoo noqday madaxweyne ku-xigeen dalka. 11 sano uu ahaa madaxweyne ku-xigeen. Sanadii 1979 ayuu noqday madaxweyne ku-xigeen. Shakhsigaas aan ka soo sheekeeyay ee xaaladaas adag soo maray wuxuu ahaa Saddam Hussein oo ahaa kacaansade Ciraaqi ah oo haystay madhab Sunni ah, kana noqday madaxweyne dal Shiicidu ay ka tahay majority 70%. waxa uu kaloo ahaa ra'iisul wasaare dalka asigoo haystay xilka tan 1991. Saddam dagaal ayuu galay intuu xilka hayay oo Iiraan ayuu weeraray oo 8 sano dagaal kula jiray. Waxa uu ahaa hogaamiye hanti wadaag awood badan ah oo xilliga ugu tunta weyneed qawaadii Carbeed. Saddam adeerkiisa gabadhiisa ayuu guursaday asigoo adeerkiisa ka dhigay duqa magaalada Baghdad. Wuxuu isku arkay in dalkiisa uu yahay qabad mandaqada maamuli karta oo dalalkii Carbeed ee Sunniga ahaa ku taageeray. Maamulka Ciraaq ayaa keentay in baqtin gelisay, taasoo keentay in la isku bixeesto. Dagaal adag ayay isbahaysiga Mareykankuna oo horboodayay ku qaadeen oo taageerayeen shacabka Ciraaq oo u arkeen Saddam qof aan mudnayn inuu maamulo. Taalooyinkiisa ayaa la jijibiyey markii laga adkaaday sanadii 2006. Maxkamad ayaa la soo saaray, asigana waxay ku xukuntay daldalaad. 14 sano ka hor ayaa lagu daldalay gudaha Baghdad. Waxa uu ku dhintay da'da 69 sano. Wuxuu hogaamiyay Ciraaq muddo 24 sano ah. Markii aynu yareen waxaynu oran jirnay Bush ha dhaco oo Saddam Hussein ha guuleysto. Taasi ma aysan dhicin oo waxaa la daldalay Saddam Hussein.